Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadlaynaa dalka Mareykanka. Mareykan marka aad maqasho waxaa kugu soo dhacaya dalka hogaaminaya dunida. Haddii ay ahaan lahayd dhaqaalaha, aqoonta, cilmi baarista, maalgashiga, dhan walba. Markaan muuqaalka gudaha u galno qaarkiin waxaa laga yaabaa inaad istirahdaan. Ninkan muxuu inoogu buunbuuninayaa Mareykan? Muxuu inoogu buunbuuninayaa gaalada? Laakiin ujeedku sidaa ma ahan. Keliya waa inaan kuu soo gudbiyaa xogta ku saabsan dalkaas iyo awoodda uu leeyahay. Ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Muddo 100 sano baa laga joogaa markii uu Mareykanka noqday dalka dunida ugu dhaqaalaha badan. Xilligaa tirada dadkiisu waxay ahaayeen 106 milyan oo qof, halka maanta ay yihiin 328 milyan oo qof. Dhaqaalaha Mareykanku weli waa kan ugu xooggan dunida. Waxa uu gaarayaa 22 trilyan oo dollar. Ma jiro dal dhaqaale ahaan ku dhow 4 meelood meel dhaqaalaha dunida waxa uu yaalaa dalka Mareykanka. Sidoo kale dalka Mareykanka waa dalka alaabta ugu badan dibadda kala soo dega, ahna kan labaad ee alaabta ugu badan dhoofsha. Tirada dadyowga dunida Mareykanku dunidu waxay ka yihiin 4%. Waxa uu dalkaasi haystaa hantida ugu badan ee dal dunida taala. 29% keydka hantiyadeed ee dunida waxa uu yaalaa dalka Mareykanka. Waxaa ku nool dalka Mareykanka 90 milyan oo qof oo isugu jira dad aan u dhalan dalka Mareykanka oo soo galootiga iyo carruurtii ay dhaleen dadkaas. Waa dalka muhaajiriinta ugu badan ay ku nool yihiin dunida. 19 ilbiriqsi ee kasta qof soo galooti ah baa soo gala dalka Mareykanka. 73% dadka ku nool waddankaasi waa caddaan, qudhoodana 100 sano ka hor ayay ka soo haajireen Yurub, kuwaas oo sameeyey maamulka hadda jira. Mareykanka maanta waxa uu hogaaminayaa ganacsiga, dhaqaalaha, aqoonta, cilmi baarista, maalgashiga, siyaasadda, ciidamada, wax soo saarka iyo dalxiiskaba. Waa dalka saddexaad ay dalxiisayaasha ugu badan ay booqdaan dunida, waana kan koowaad ee shidaalka ugu badan soo saara caalamka, ahna kan labaad ee shidaalka ugu badan iibsada. Waa dal aad u baaxad weyn oo lagu tilmaamay inuu yahay kan afaraad ee caalamka ugu weyn. In ku dhow 20,000 oo madaar baa ku yaala gudaha Mareykanka. Waa dalka leh madaarada ugu badan caalamka. Sidoo kale madaarka ugu mashquulka badan waxa uu ku yaalaa dalkaasi Mareykanka. Waa dal astaan u ah hal-abuurka iyo daahqaadidda. Waxyaabaha uu dalkaasi daahqaaday waxaa ka mid ah diyaaradaha, taleefannada, kumbiyuutarada, laambadaha, internetka iyo waxyaabo kaloo badan. Waa dalkii ugu horreeyey ee duulimaad diyaaradeed sameeya. Maanta shirkadda rakaabka ugu badan qaada dunida waa Mareykan. Sidoo kale Mareykanka waa dal horumar ballaaran ka sameeyey sayniska iyo caafimaadka. Tartankii hawada sare waa dalkii ugu horreeyey, ahna kan qura ee dad dalkiisa ka soo jeeda ay dayax duldegaan. 12 qof ee taariikhda u diiwaan gashan inay dayax cagta dhigeen dhammaantooda waa dad Mareykan ah. Ganacsiga marka la eego labada suuq ee sarif ee ugu weyn dunida, labadaba waa Mareykan. 10 shirkadood ee ugu qiimaha sarreeya dunida, 8 ka mid ah waa Mareykan. 100 shirkadood ee ugu dakhliga sarreeya caalamka, 54 ka mid ah waa Mareykan. Shirkadda shaqaalaha ugu badan dunida shaqaalaysiisay waa Mareykan. Waxbarashada 10 jaamacadood ee ugu horreeya dunida, 8 ka mid ah waa Mareykan. Waa dalka martigeliya ardada ugu badan ee ajaanib ah ee dal aan dalkooda ahayn waxbarasho u doonta. Dhanka ciidamada waa dalka loo arko kan ugu ciidamada xooggan dunida. Waa dalka qura ee haysta in ka badan 10 markab oo diyaaradaha xambaara. Dalalka kale ee haysta dhammaantooda haddii la isu geeyo isaga ayaa ka badan. Diyaaradaha dagaalku uu dalkaasi Mareykanka haysto waxay kor u dhaafayaan 13,000 oo diyaaradood. Dalalka ku soo xiga tira ahaan isku darkooda isaga ayaa ka badan. In ka badan 7,000 oo madaxa nukliyeerka ayuu haystaa dalkaasi Mareykanka. Waa dalka ku baxsha ciidamadiisa qarashka ugu badan dunida. 10 dal ee ku soo xiga isku darkooda isaga ayaa ka badan qarashka ay ku bixiyaan. Mareykanku waxa uu saldhigyo ciidan oo dhan 680 saldhig ayna joogaan ku dhowaad 4,000 oo askari ku leeyahay in ka badan 70 dal oo 6 qaaradood dunida ka mid ah. Sidoo kale Mareykanka waa dalka hubka ugu badan dunida u iibgeeya. Marka laga hadlayo hodantinimo, kala bar dadka milyaneerada ee dunida ku nool waa Mareykan. Sidoo kale 8 ka mid ah 10 qof ee dunida ugu hodansan waa Mareykan. In ka badan 700 oo bilyaneer ayuu leeyahay dalkaasi, halka dalka ugu dhow uu yahay Shiinaha oo leh 325 bilyaneer. Waa dal haysta keydka dahabka ee ugu badan caalamka. dalka horumarkaas oo dhan gaaray oo dhan walba kaalinta koowaad kaga jira
dadkiisu waa kala isir, kala diin, kala dhaqan, kala midib iyo kala afba. 500 oo sano ka hor waqti laga joogo baa dhulkaasi la helay. dadkii ugu horreeyey ee u haajira waxay ahaayeen dadyowga reer Yurub oo maanta ka ah 73% waana kuwa ugu badan maanta. dalka Mareykanka waa dalka qura ee laga helo isir kasta oo caalamka. 37 qowmiyadood oo ka mid ah dadyowga dadkaas ku nool baa dadkoodu 1 milyan kor u dhaafayaan mid kasta. waxaa lagu tilmaamaa dalkii hal abuurka, ilbaxnimada, aqoonta, tiknoolajiyada. magaalada New York oo ah astaanta xurriyadda dalkaas, magaaladaas oo qura waxaa looga hadlaa 850 luuqadood.